بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن وعن ولا لها مسلمين تأه ملك استأدون كجوكتان. إلهي سبحانه وتعالى دنبجينا دنبج والدكنا دافو. أنت حنوسن إلهي سبحانه وتعالى عافيو. أنت مرادنا إلهي سبحانه وتعالى مرادك ده سهله. ولا لهن دنتي نجار مري إلهي سبحانه وتعالى نجد دورتينا إلهي سبحانه وتعالى وحجبرينا إنه نحرسته. intaa kadib walaalayaal barnaamijkan waxaan uga hadli doonaa maalinta Carafo. waxaan ka hadli doonaa dhowr qodob oo muhiim ah. waxaan rajaynayaa in si fiican dhagta loo furo walaalahan ay ka faa'iideystaan. qodobka koowaad waxaan ka hadli doonaa dabcan fadliga ay leedahay soonka maalinta Carafo. waxaan kaloo ka hadli doonaa maalinta Carafo haday ku soo beegmato maalin Jimco ah ma waxa laga hormarinayaa maalinta ka horeysa oo Khamiista ah. maxaase laga yeelayaa axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ee reebaysa in maalinta jimcaha ah soon loo gaar yeelo. waxaan kaloo ka hadli doonaa qodob muhiim ah, qofka soon qalla lagu leeyahay muxuu yeelayaa maalintaasi. walaalayaal sidaad ogtihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay siyaamu yawmu carafa, soonka maalinta Carafo, inni ahtasibu cala allah أن يكفر سنة التي قبله. إلهي سبحانه وتعالى وحن كرجينا يا إنه كدافو دنبيدي لصوق لي سنة كهوري والسنة التي بعده هي سنة كدنبيا. سنة كهوري والله قرتي وقف كدنبي أيو صوق لي سنة كدنبيا سدال وجود عافية. علماء الإسلام كوحي يراهدين إلهي سبحانه وتعالى رحمة ديسا يفضل جيسا أيو قف كاسينا يا إن أقفلا إنه وجود بدافو dambiyada ka dhici doona maadaama Allah subhanahu wa ta'ala uu ogyahay qofka inay dambiye ka dhacayaan bil aadanka dhamaantiisana ay yihiin kuwa gafa. marka waa maalin aad iyo aad u fadli badan, fursadeedana in laga faa'iideysto aad ayay u fiican tahay. qofkii awooda inuu soomo ayaanu ku boorinaynaa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dartiisa uu soomo si uu helo ajirka aadka iyo aadka weyn. qodobka labaad waxay tahay hadii uu maalin Jimcaha ku soo beegmo maxaa la yeelayaa. النبي عليه الصلاة والسلام وحليه أحاديث كسقناتي لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. قفكين يسنسو من مالنت جمعها إلا إنه مالن كهر مريو أما مالن أكدن بيو. روايتك لو حليه ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام مالنت جمعها هأجاري لنا صوما من بين الأيام. maalmaha kale aad ka doorataan oo aad jimcaha soon la doonataan illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum, illa soon uu horay qofkiin uu soo soomi jiray ma ogiye yuusan qofna maalinta jimcaha ah si gaar u dooranin. haddaba axaadiistani saameyn ma ku yeelanaysaa maalinta Carafo haday jimco ku soo beegmato? jawaabtu waxa weeye maya kuma yeelanayso. qasabkuguma ahan inaad soontid maalinta ka horeysa oo Khamiis ah. maxaa yeelay axaadiistani waxay reebaysaa qofka in uu gaar u yeelo ama uu la beegto maalinta Jimcaha ah oo soon kaliya uu la beegto. marka saas darteed maadaama maalinta Carafo ay ku soo beegmatay maalin Jimco ah, Ilaahay fadligiisana ay ugu soo beegmatay iyo awoodiisa, qofka qasabku ma ahan inuu soomo maalinta ka horeysa Khamiista ah. waxaan filayaa arintaas in la fahmay. dabcan maalinta ku xigta ma la soomi karo sababtoo ah waa maalin ciid ah. marka su'aashu waxay tahay qofka ma qasab bay ku tahay inuu soomo maalinta Khamiista ah? maya. ma dambi ba ma karaahiya in maalinta Jimco oo maalin Carafa ku beegmatay inuu soomo? waa maya. oo axaadiistani waxay reebaysaa qofka inuu la doonto waxyaalo inuu isaga u gaar yeelo oo si gaar ah u raadsada maalinkaas oo uu soomo uu ka doorto maalmaha kale. waxaan filayaa inaan qodobkaas la fahanay. qodobka ugu dambeeya muhiimka wuxuu yahay in badan aan cajalada badan ku baraarujiyay qofka soon qalla lagu leeyahay maalinkaas muxuu sameeynaya. qofka aqliga leh fahmana arintani uu ka faa'iideysan karaa. walaalayaal qofka horta waxa muhiim ah soon qalla marka lagu leeyahay marka koowaad inaad deynta Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo gudid. deynta Ilaahay ayaa xaq leh una xaq leh in la soo gudo. saas darteed qofka waxa u furan inuu maalinkaas niyeysto inuu soo qallaynayo soonkii qallaha ahaa ee lagu lahaa. tusaale bishii Ramadaan hal maalin ayaa ka soo tagtay, muusan soo soomin, uu iska sugay maalintii Carafo ayaa la soo gaaray. wuxuu niyeystay maalinkaasi inuu soomayo soonkii qallaha ahaa wuxuuna ku beegtay maalinta Carafo.
fadliga ilaahay qofkaasi wuxuu helayaa ajirkii maalinta carafana uu helayaa soonkii qallaha ahaa ee lagu lahaana uu ka dhacaya waxaa kaloo lamid ah qofka 9 maalmood doortay ama sameeya ama raba inuu soomo wuxuu sameyn karaa in uu u niyeysto soonkii qallaha ahaa ee lagu lahaa kuna aadisto maalmaha fadliga badan markaasi wuxuu helayaa ajirkii maalmahan iyo fadligan uu helayaa sidoo kale soonkii qallaha ahaana uu ka dhacaya Allahu akbar ma wax dhib badan laakiin waxaa jirta arrin khaldan oo dadka khalad ka fahmeen taasoo ah qofka sooma maalmahani in loo dhaafayo soonkii qallaha ahaa ee lagu lahaa weligiis sax ma aan maalmahani soonku wuxuu ka mid yahay camalka wanaagsan horta soon si gaar ah la iskaaga ma rabo asaga laakiin acmaasha wanaagsan waxa ugu sii wanaagsan waxa ka mid ah soonka ayaa ka mid ah marka qofka sooma maalmahani ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajir fara badan ayuu siinayaa waana maalmaha ilaahay agtiisa loogu jecel yahay camal wanaagsan oo la sameeyo laakiin haddii aad soontid soon sunno ah oo 9 maalmood aad soo soontid macnaheedu ma ahan in soonkii hore lagugu lahaa lagaa dhaafayo soonka ugu hore soonka lagugu leeyahay wuxuu kaaga dhici karaa inaan niyad qalla ah la timaadid oo maalinka aad soomaysid aad u niyeysatid in aad soomaysid soonkii qallaha ahaa ee lagugu lahaa جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا نبدي عافماد إنه مقارسية مالنتا عرفو إيو سنة فربضا إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا دنبقيني دنبق والدكنين ونعفو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته